بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عشر كانوا عاووا كبلا ميا إلهي إذن كيس آيات اللبية تبناد سورة العنكبوت وعونا إن شاء الله آيات كوبية تبناد سورة العنكبوت وعونا إن شاء الله تعالى كوكي آيات الشرية اللباتنا وعينا قدام بيي oo suurada ay noogu dambeeyay alle tabaaraka wa taala oo tilmaamay dadka inay kamid yihiin kuwa marka oranaya ilaahay baanu rumaynay hadii la dhibo ilaahay dartiis loo dhibo waxa uu ka yeelayaa fidnada iyo dhibaatada dadka kaga imanaysa ka cadaab ilaahi ilaahay cadaabkiisa oo ku soo dhacay oo kale ayuu kala mid dhigaya الله وحي هدي ويمادو قول يا غرغار إلهي حقي سكتمي وددكو أي قوليستان إسلامكو فتحي هلو قوليها منافقين تا وحيدها يان معينا نوهينا وإذن لجرني وإذن كاذن لنا ولينا مسلمين بانو نحي إلهي وحكسو قبقبي يقولداس ألم يوستنهين متكو قال بدن وحكسو قلبي يدا أونك أودن كذنا الله وحير ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين إلهي وحو أغانيا يعني أموشينيا وعضينيا ددك مؤمنين تا إيمانك له يكون منافقين تا يا إلهي كلا سوعيا أو كلا صاريا سيدا سامركا إنه قدن بيي قال تعالى ألا وحيري وقال وحيرادين الذين وحي كفروا قالوا بي للذين خيارتي وحيرادين آمنوا ألا الرميي اتبعوا راعة سبيلنا جدك يقى راعة بي قال دي مؤمنين تي كدهين وهدانوا جدكين الراعة محاد سمين إيسان ولنحمل آن نقاضنا وحنبارنا خضاياكم دنبيدين يقففكينا أنه آنو حنبارنو ألا وحي تبارك وتعالى إساقو تلماما أيا قل يحنيني بين شيغايان أيا ألا وحي وما هم مي أهانين قالدو بحاملين كوا حنبارا يوقاضيا من خطاياهم كوا المؤمنين تأقفكو دي دنبقودا من شيء وحببك حنباري كريمايان إنهم يقولون لكاذبون وكوا بين كل شيء فيما يقولون وحي إليهم إنهم يقولون لكاذبون وكوا بين شيء يقول الله مركوعي تبارك وتعالى ولا يحملن ولا والله يحملن ويقاضيان قالوا وحنباريان أثقالهم عليس يدودا يعني دنبغودا عليسكيسا iyagu qaadayaan iyo athqalan culays maca lagu ziyaadiyay athqaalihim culayskooda loogu sii daray oo dadkay lumiyeen dembigoodiina dusha laga saaraya alla wixii wala yusaluna alla waa weydiinaya yawm alqiyaamati maalinta dambaysa amma shaygi xaqiisa kaanu ay haayeen يفترون كوا بين أبورتا افتراقية بين أبورتكي أي سمين جرين ويرجع نقا دنبقين قاضين نقصوا ضيدا أرنت النوع عاسا يالا تلمامية إن مركا لو يدين دونه لبضن آيادات والله ما يدو عجبضن وعن الله تبارك وتعالى وتلمامية نمانكي قالتها إما كجوغي inay dadkii muuminiinta ay rumeeyay rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam inay ku dhaheen war annaga na soo raaca jidka iyaga soo qaada annagana raaco nagu dayda
oo annaga markaa waxa weeyaan naqalito oo na raaca allah markaa wuxuu tilmaamay inay ballan qaadeen oo dhaheen haddii aad annagana soo raacdaan wax allaala waxaad dembi oo samayseen baa annaga qaadayna dembigiina annagaa idinka qaadayne idinku jidkayaga uu soo maro annagana soo rumeeye taasa alla wuxuu tilmaamayaa inaana wax dembi oo ay qofka qaadi karaanba aanay jirin sababtu waxa weeyaan dunuubta qof kasta waxa uu isagu geystay ayuu u xidhan yahay kullu nafsin bima kasabat rahiina naf walbaay wixii ay shaqaysatay ee ay geysatay ayay u xidhan tahay taasay markaa u xidhan tahay weey marka walaa taziru waasiratun wisra ukhraana waynu soo marnay allah markaa wuxuu tilmaamay in alla uu yihi walaa yaxmilunna adqaalahum kuwan gaaloobay waxay xambaarayaan adqaalahum ay awsaaru acmaalihim dembiyadooda dunuubtooda culayskooda ayay xambaarayaan iyo wa adqaalan maca adqaalihim culaysyo culayskoodii loogu sii daray wa adqaalan iyo culaysyaal maca oo lagu siyaadiyo lagu daray adqaalihim dembiyadooda dembiyadaa ay loogu siyaadinayaa waa maxay waa awsaaru man adalluu wasaduu can sabiili illaah maca awsaarihim dadkii ay iyagu lumiyeen ee xaqa ay ka hor istaageen dembigoodiina dusha iyaga laga saaraya maadaama ay sabab u ahaayeen iyagu ay baadiyeeyeen ilaahay markaa wuxuu tilmaamay wala yus'alunna yowma alqiyaama waa la weydiinayaa oo waa la su'aalayaa gaalada iyo waxa weeyaan waxa ay sameeyeen maalinta qiyaame wala yus'alunna yowma alqiyaama maalinta qiyaame waxaa la weydiin cama ay alladii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta masabidkii iyo been abuurkii ayaa la weydiinaya calaa sabiili altawbiikhi waataqriic baa loo weydiinaya ayadahani markaa sida uu tilmaamayo muqaatilu abu sufyaan ka warinaya wuxuu leeyahay ayaddani markaa waxaa yidhi yani ninka cafwan waxa weeye muqaatil iyo kelebi aba waxay leeyihiin ninkii abu sufyaan ahaa intaanu soo islaamin baa wuxuu ku yidhi dadkii muslimiinta ah ee quraysh ka mid ah itabicuu sabiilana ay diinana wa millata aabaa'ina war diinta iyada iyo aabbayaashay waxay aaminsanaayeen nagu soo raaca wa naxnu lkufalaa'u bikulli tabicatin min allahi tusiibukum annaga idinka xilqaadno mas-uul idinka ah wax walba oo dembiya oo beri laydin qabsan doono taasaa marka alla tilmaamaya tabaaraka wa tacaala cid dembi ka qaadi karaysaana ma jirto sababtu waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil wey qofna dembi aanu samayn qof kale yani uma qabto wey qofka dembigu samay isagun baa loo xidhan wey marka waxa wey carabtu dhaqan bay u lahaydoo waxay odhan jireen ifcal calaa haada yani waxaan samee ifcal haada shaygan samee bay odhan jireen wa khati'atuka calaa raqabati adugu waxaan samee xilka dembigaaga anaa qaadanaya dembigaaga anaa qaadaya adugu waxaan samee bay dhihi jireen taasaa marka ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala qofkuna sidiisaba sida aynu soo marnay wain tadcu muthqalatun ilaa ximlihaa laa yuxmal minhu shayun walow kaana daa qurba yani waxa weeyaan mid culays u saaxiiba hadday u qayshato markaa mid kale oo tiraahdo warkaal iga dulqaad xabad ka dulqaadi mayso xataa qofkaasu hadduu qaraabo soka uu yahay wey xaba kama dulqaadayso marka halkan waxaa laga qaadanayaa qofka hadduu qof wanaag ugu yeedho aayaddan sida cagsigeeda laga fahmayo ajarkii buu ka helaya hadduu dembi ugu yeedhona yani waxa weeyaan dembigiisii culayskiisa ayaa isagana dusha laga saaraya wey wala yaxmiluuna adqaalahum wa adqaalan maca adqaalihim qofku dadka uu lumiyo dembigooda ayaa dusha laga saari qofka uu toosiye ajarkiisana waa la siin sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man dacaa ilaa huda qofkii khayr dadka ugu baaqo ugu yeero hanuun kaana lahu min alajri milu ujuuri man itabacahu ilaa yowmi alqiyaama waxa uu iska leeyahay u sugan cid allaale iyo ciddii dariiqiisaa martay ajarkiisa
ayuu markaa waxa weeye qaadanayaa ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaro min ghayri an yunqasa min ujurihim bishay iyagoo aan waxba laga nusqaamin wixii ay markaa ajar qofkii aad u yeedhay ajarkiisa oo la wada siiyey ayaa adigana ajar haddana kiisa la mid lagu siinaya oo waligaaba ku durduraya taasi waa dhinacii wanaaga waman daa ila dalala qofkii qof baadi ugu yeedha baadinimo dambi inuu xumaan sameeyo qofkii qof ugu yeedha oo ku gubaabiya kaana calayhi min al-ithmi korkiisa waxa dambiga يعني وحويان مثل آثام من اتبع إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثارهم شيء ضدكي isaga raacay ee uu lumiye dambiyadooda oo dhan iyagoo aan waxba laga nusqaameen baa dushiisa la saaraya marka qofkii umada khayr ugu yeerana inta qof uu khayrka ugu baaqay ajarkay sameeyeen iyo quraanka xada midalan qof baa tafsiirka ugu yeedhay وعديبه وكان ولا المخايد كسوكا أفرتن كان دقيقه كالي كتاب كإلهي دقيسو وكو سوء أجيبي وقف خير قباه انت او تفسيرك دقيسانيو اما او مساجك اعتكافيو اما او صلاة دي مخرب جماعة لتكنيو تعشر او جماعة لتكنيو انت دنبك او كم نبدك شيء هاي انت هدو تصبيح يا قرآنك او اخرية وحا او دقيسانيو أجر كيسي إن لأقبع أدنى الغسينية marka hadaad maanta dhowr qof keensato de xawaalada ku furan xawaalado ayaa ku furan oo ajarku saa ugu soo hoobanayo marka nin walba de ninkii hal xawaalad la hal ninkii keenay hal qofkii keenay hal xawaalad buu furan kii 10 keenay 10 durdur 10 ilood baa u burqanaya xaqiiqata waa saa nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamay qofka soo xadiiska nabi maxamed saa ku rumayso qofkaad baadiyeysana tusaalaan qof baa tafsiirka ka kaxaysay سو تفسير ورسالة ورنيه وتفسير باكوريريه هاوش العركة صار الإسلام مرياه حدقها اللي يسكت دبنا يعني أدون كيف كورونا فرسي بلاي ورسي سياسات على كم مريسانيه وكالي إنه هل كم حكى لقوينه مقاعد بعد فريسو تفسير كذا كباجس ساعات دي الجامعة وكضاهي 20 متو كان دود دونه هدود دون الدم ببسي سمي وح اللالي وحوقف كاي سمي دوش هذوي هذه مركوا خطر نقف مسلم كإسرائيلي على الرباط الله مركا وحي تبارك وتعالى وقال وحيدهن الذين وحي كفروا قالوا بي للذين خيارتي آمنوا على الرمية وحي كلهن اتبعوا يعني صار راعة سبيلنا جدك يا راعة اتبعوا راعة سبيلنا جدك يا راعة ولنحمل آن نقاضنا وحنبارنا خطاياكم قففكينا يدن بيدينا آن نقاضنا الله وحي وما هم ميهان قالوا بحاملين كوا حنبارا يوقاضيا من خطاياهم كوا كراي اللوميين قفف كودا يكون ويريان كوا قاضيا معها من شيء كقاضيا معها من شيء يعني وانا كرؤو وحلا لئي وحي كقاضيا ما هوي ما جرتوي إنهم كواس قالوا لكاذبون وكوا كبين شيئا فيما قالوا من حمل خطاياهم وحا اي يرادين دنبغينا نقادنا بين بي كشيغين قالوا قوي الله وحي اسكا دا اني wax kala ajar ay qaadaan dambigooda iyaga dusha waxa laga saaraya fiiri ala wixii wala yahmilunna way xambaarayaan athqalahum ulaysyadooda wa athqalu dhunubihim dambiyadooda ulayskooda way oo waxaad ogaataa dambigu ulays buulay dambigu ulays عافمات علايس نقاله علايس نبدقليو علايس أقون لآنيد علايس عاصنمو انتاس او علايس بدنبي كوكينيا سببتها السلف يحورن جرين هدان إلهي عاصيو دي وحان كقرتا إنان دنبي سميي حاس كيغا دبي عدي دي حال كيدا أنكو أغابا اسبدلا إيا فرسك آن سارناي فرسك إيوانا اكسلاي ميلبي ياركا isagoo uu igu noqday macangib aan soconayn oo dhibaato badan qoftii dumarkee raaliyada ahayd oo hadal igu soo celinaysa oo ay xaaladdu taagan tahay warniyo xagga laga soo galay dib isugu noqo ada wax sameey al-illatu fiik illadu waa adiga qofku markuu dambi sameeyo culays baa fuula dadkii salafku marka aad bay u yaqaaneen iyo saxaabadu iyo culimadu way yaqaanaan qofku marka uu culays dambi sameeyo markii buu xoranayaa قل هو من عند أنفسكم
waxaan kugu dhacay waa min cindi anfusikum ilaahay cidna ma dulmiyo moogtahay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir marka waa kana allah wuxuu wala yaxmilunna waxay xambaarayaan gaaladu adqaalahum iyagu horta dembigooda way qaadayaan iyo wa adqaalan culays maca lagu ziyaadiyey adqaalihim kuwa kale culayskoodii ay lumiyeen culayskoodii oo loogu darayna way xambaarayaan allah wuxuu inta laga hadhi maaye wala yus'alunna waa la su'aalaya oo waa la weydiinaya yawma alqiyaama maalinta qiyaame amma shaygii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta iftiraa waa shayga waxba ka jira beenta wey inta kadib allah tabaaraka wa tacaala halkan wuxuu ka geliyaa nabiyilaahi nuux nabigi ilaahi nuux ahaa oo awwal rasuul ursila ila an-nas rasuulkii ugu horeeyay dad loo soo diray bacda يعني التوحيد بعد الشرك بان لا مركو شرك سو دغي ليدعو الناس الى التوحيد ددك سو توحيدك ugu yeero alla wuxuu walaqad waxa dhab ah arsalna inaanu dirnay nuuxa nabi nuux ila qawmihi tulki xaqi aan u dirnay falabitha wa nagaaday nabi nuux fiihim qoomkiisa dhexdooda alf sanatin kun sanadood illa 50 aaman konton sano mooyaane kun sano konton niman ayuu dhexdooda ku sugnaa fa akhadahum waxa qabtay qoomkiisii ad-duufaanu duufaan bihi badnaa ee duufaanka ahaa ayaa qabtoo ku dhacay wal xaal hum iyagu zaalimuuna ayyin kuwa mushrikiina zaalimuun bimacnaa mushrikuun sida ibn Abbaas uu ku fasirayo iyagoo mushrikiin ah oo tawxiidkii ka tegay oo rasuulkii beeniyay 950 sano markuu qaylinayay ayaa alla tabaaraka wa tacaala uu dambigoodii ku qabtay biyaa lagu sii daayay way cirkiya samadii bay isqabsaday way allah markaa wuxuu faanjaynaa waan badbaadinay hu nabi nuux faanjaynaahu nabi nuux waan badbaadinay iyo wa ashaabas safiinati doonta dadkii doonta yani saarnaa baanu badbaadinay wajacalnaaha doontii waxaanu ka yeelnay aayatan cibro shay mucjizo cibro ah oo lil caalamiina unka oo dhan iyo makhluuqaadka iyo aadamiyaha u sugnaatay ayaanu ka dhignay weeyaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waxaanu soo dirnay nabi nuux wuxuu ahaa intii u dhaxaysay nabi nuux iyo nabi aadam taqriiban waxaa lagu sheegay 1642 sano nabi aadam maalintii laga soo dajiyay yani waxa weeyaan dhulka loo soo dajiyay ilaa iyo maalintii nabi aadam la soo saaray nabi nuux la soo saaro la soo diray yani waxa weey taqriiban dadku culimadu waxay tilmaamaan ilaa iyo 1642 sano taqriiban meelahaas sida culimada qaar kood ay marka ay soo guuriyaan marka muddadii ugu horeysay dadku xunafaa dad wanaagsan bay ahaayeen markii waqtigii uu dheeraaday nabi aadam awlaadiisina ay bateen ayaa waxa soo baxay shaydaan oranaya yani waxa weeyaan odayaashii wanaagsanaa ee saalixiinta ay dadkii culimada ahaa oo nabi nuux nabi aadam aakhir marka dadkiisii marka ugu dambeeyay kamid ahaa inta nabi nuux la soo saarin yaa waxa weeyaan wuxuu yiri si aad u xusuusataan culimadii iyo mashaayikhdii iyo dadkii noocaas ah iyo dadkii saalixiinta yani waxa weeyaan sawiro dhiga kadibna waxa weey sawiradii baa la dhigay muddo markii cilmigii loo ilaabay waxa soo baxay inuu ibliiskii waxyooday duriyadii dambe oo ku yiri aabayaashin ilaahay ma caabudi jirine asnaamta la caabudi jireen yaquuth waxa weeyaan yaquuq waxa weey sacuuq kuwa ilaahay u tilmaamay yaquuth wa yaquuqa iyo nasran ila aakhirih ragi noocaas ah oo ay markaa isu dardaarmayeen la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadan wala suwa'an wala yaquuth wa yaquuqa wa nasran shantaas ugu waaweyna asnaam waaweyn bay ahayd dabeed markii arkay dadkii inay shirki ku noqdeen yani shirka ay sameeyeen ayaa nabi nuux loo soo diray nabi ilaahi nuux marka yani magaciisa
عبد الغفار با لو شيغا اما علماء بدن waxay magaciisa عبد الغفار ba la oran jiray waxa weeyaan magaciisu marka waxa weeyaan waa nuux ama عبد الغفار ابن لمك ابن مستوشخ ba la oran jiray إدريس والنبي الله إدريس بو marka يا marka awowgiisa marka waxa weey labaad ahaaween marka waa nuux ibn lamak ابن مستوشلخ ابن إدريس أخنوقنا ولا إدريس مقعيس مركا إنا محويان لامكبوها ولامك مركا واض ريبيسا ونوح ابن لامك ابن مستوشلخ ابن إدريس هل كاسد مركا وحويان كجلسا أن مركا أولادي سنافر ويل بي أهايين انت لشيغو وحام إيسام iyo ninkii la oran jiray Kancaan oo ninkii la halaagay wiilkii gaalka ahaa ee Yaafith marka Yaafith iyo Ham iyo Sam iyo ninkii la oran jiray Kancaan waa wiilkii uu lahaa ya bunayar kam macana wala takum ma'a al-kafirin oo marka la aabe yani waxa way saawi buurtaasan marka fuulaya wakiilha saawi ila al-jabal بورتا مركا أنو عرّي حقيدا نبي الله نوح وحا الله صاري سوى فرطة سنجرة دعوة وحو ودي سقال بقول يكونتن سنو انت مركا اللي سوقيو وحي نغونا يان سقال بقول يسقاشن سنو سقال بقول يسقاشن سنو مركو جوي ayaa waxa la halaagay qoomkiisii kadna 60 sano oo dambe ayuu sii noolaa adduunka sii joogay isugeynta markaa nabi ilaahay nuux taariikhdiisu waa 150 sano 150 sano weeyaan inta nabi ilaahay nuux waqtigiisu ahaa 40 uu ahaa intii la soo saaray 40 sano ambiyada markii 40 gaarama kitaabka loo dhiiba 950 daaciib ahaa 60 sano oo qoomkiisa la halaagana uu sii noolaa 150 ka way taariikhda nabi ilaahi nuux alayhi salaam marka allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa taala waxaanu soo diray nabi ilaahi nuux qoomkiisii baan u soo dirno falabitha fiihim dhexdooda wuxuu ku nagaaday wuxuu ku sugnaaday 1000 sanatin kun sano illa 50 aaman suuratu nuux baynu ku soo marnay suuradan baa lagu bacdaray إني دعوت قومي ليلا ونهارا يعني هبين إيا مالين وانقيل قوم كيغا سقال بقول يكونتو كان مو فريسا إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا كر إيا هوسنا وحبان وشاك وحالي المركة النبي الله نوح دعوة ديسو هدين نقطة وقتنا هبين إيا مالين وابحي هدين نقطة غاب كدعوة لو قد بينا كر إيا هوس بدلك وشاك دعوته وان دي لبداس marka waa dareemi karaysaa dacwadan anbiyadu waqti ku qaateen iyo say marka ummadooda marka u dhex taagnaayeen markii anbiyadii qoomkaasi markay diideen nabi ilaahay nuux ay beeniyeen oo asnaamtii ku dhageen oo ay isu dardaarmeen asnaamta inaanay ka tagin oo wiilku odagu markuu dhimanayay baa li qoomkiisa qoom cimri dhaadheer bay ahayn odagu markuu arkay inuu waayeelay ayuu wuxuu soo kaxaynay wiilkiisa وعلى إنه صاكح النبي الله نوح مالها مرة يرفيريو يعني ننكا ماركتا هدان ننتو ننكا إسكيلا دعوة دي ساقاذن مركي لقا قوستي أيالا وحي تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا دون سماه كدنا نبي الله نوح واكي مركا دونتي سميي دونتي مركا وسميني ويليا بنايا وحي لهاين وننكي وحو يراهد النبي بان هيبا ما انتو النجار اسكا نقضي فرسم يقان مدى كلا وحي يراهدين دو إنو واشو هدي الدون بدبا لغو سبيسان جري وما حنينك برقا عادي دون تكو سميني حالة النوع عاصرة ما اني دارين سنين يسوون الواح وحويان يكسميني يمركا مصابير ذات الواح ودسر waxaan ku soo marnay suurada loo yaqaan iqtarib baynu ku soo marnay marka nabi ilaahay nuux markuu diyaariyay ayaa la yiri dadka waxa adduunka jooga
adduunka dushiisa saaran mid walba laba nooc ka saar laba nooc ka saar sidaasaa markaa يعني waxa weeyaan ummadda wixii adduunka saaraa ilaahay ugu tagay in noolaadaan ayaa min laba laga saaray wax walba shay walba laba xabo quraanca laba xabo oo shinniya laba xabo caara laba libaax laba dhurwa laba waka halkaas marka laga soo tarmay dadkuna dad yar biyaan dadka taqriiban la socday nabi ilaahay nuux la fuulay 8 qof ama 10 qof baa lagu sheegay oo rag iyo dumar baa qaar waxay yiraahdeen waxay ahaayeen 5 wiil iyo 5 gabdhood marka taasa ilaahay wuxuu tilmaamayaa tabaaraka wa taala in la baabiiyay qoladii marka biyaha lagu soo furay suuratu huud baan u tagi doonaa fa akhadahum at-tufaan duufaan baa ku dhacay waa biyaha sabaynaya ee dhul iyo cir marka buuxinayo wahum zaalimuun iyagoo mushrikiin ah allah marka wuxuu tilmaamay in la badbaadiyay nabi ilaahi nuux oo doontii lagu badbaadiyay isaga iyo asxaab as-safiina kuwii doonta u saaxiibka ah iyagu marka doonta la saaray in qaraqii laga badbaadiyay waja'alnaaha aayatan lil caalamiin ilaahina tabaaraka wa taala wuxuu ka dhigay yani waxa weeyaan cibro ay kuwana qaataan yani waxa weeyaan ummadihii dambe oo marka waxay ku baaqi ahayd doontii nabi nuux markii ay ugu dambeysay ay waxa weeyaan dadka ay ilaahay ku badbaadiyay doontaasi waxay ku soo xiratay buurta juudi la yiraahdo juudi culimadu aad bay isu weydiiyaan laakiin meesha ugu dhow waxa weeyaan meesha muusil la yiraahdo adigu waqooyiga ciraaq inay markaa waxa weeyaan ayay ku xidhnayd oo markaa halkaas ay taale xiliyadii ugu dambeeyay ilaa ay saxaabada qaarkood ama awal islaamka awalkiisii bay doonta soo gaadhay oo cibray ahayd waja'alnaaha aayatan lil caalamiin waxyaabihii la waariyay iyaga doontaas iyo jasadkii fircoon اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية استوى الواريوي مرك الله وعي تبارك وتعالى ولقد أرسلنا حقيقة وأن درنا نوح النبي نوح إلى قومه تلكي بأن أدرني فلبث وأن قادي نبي نوح فيهم دحدودا وعكنا قادو دعوة كودي 1000 سنة كل سنة دود إلا مويان 50 عاما إلا 50 عاما كنت سنة دود مويان marka halka waxaad ka dareemaysaa aayadii horena xisaabta ku darta la yiraahdo ku soo marnay aayada tanna xisaabta ka jirka la yiraahdo oo waxa laga yaabaa dadku inay siraadaan maadiga yaqaan ku jariyo gaalada taqaan ku jariyo ka jariyo ku dariyo ku dhifiyo u qaybi waxba quraankeeda ku jiraan oo markii la yiri wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a wa balas wa ku darti ma'a lagu daray way أثقال الدنبي قودي والله قدر الدنبي قودي علميين سو بلاس يقدر معها هل كان مكان أصوب بعدي يا كجرتين واتنا إلا 1000 سنة إلا 50 عاما كنت وعليه كل سنة أو كنت لك شري سقال بقوليه هل كان معك أصوب بعدي حسابتي كجرتي مركا حسابتي يا الشريعة واسكمت وهذا حسابته شرع عليك متى لتعلموا عدد السنين والحساب وكلا نيكي قبيي لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهمان هدان جير لان حساب كجر يا كدر دي لبق سامية هل ساميتون لما قيبيين دي مركا waxa weeyaan علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان مرغوبان علمك الشريعة يا علمك حسابته والله علمي ولا جعليهاي لونه باهي marka xisaabtu waxay kamid tahay diinta ay kamid faraa'idkii oo dhan baa ku xiran salaadii baa ku xiran waxa weeyaan wax walba xisaab bay ku xiran marka wiilka yare xogaa iskuulka wax ka soo dhigtay waa inuu sanisdeen war shariicada xisaabta asal oo halka kan suuratu kahf bay ugu tagaynaa oo aad iyo aad ugu faahfaahin doonto xisaabta iyo suuratul baqara haddana waa bahaysaa الله مركا وحي تبارك وتعالى فأخذتهم محاقبة الطوفان فأخذهم محاقبة منكي قال ذا الطوفان به سبيني
والحال هم يقوا ظالمون أي مشركين أنجينا وابد باذنه النبي نوح وأصحاب السفينة دون تدد كيدي وجعلناها وحانكيا وأصحاب السفينة سفينة كوي أصاحبك دون تصاحبك دون تبرك أصاحبك مركا لنا هيدد يدوية وصارين حيوان بصار ألا وجعلناها وحانكيا لدونتي آية عبرة شيء لقو قاتو لقو عبرة قاتو أيان للعالمين يعني أمك يا مخلوقاتك وقدك نوي انت كتب الله وحي نوغشكي نبي الله إبراهيم ألا وحي وإبراهيم العراب تيدو لبواد أوران كرتا وحان وقفي عن إن هدوسو قدرتو وأرسلنا وحان صادرني إبراهيم نبي إبراهيم بانو صادرني إذ وقت بانو درني قال أوير لقومه تلكي اعبدوا عابدوا قوم كيو الله إلهي واتقوه كان عبصد إلهي ذلكم عابدين عابدان إن أتكعبصتان أي خير وناك بدن لكم إذنك إذن خير بدن إن كنتم هداتهن تعلمون كوح قرانيا إنما تعبدون وحد عابد إيسانون من دون الله ألسوا كديس أوثان أصنام بعد عابد إيسان وتخلقون وحد أبوران إيسان إفكم بين وتخلقون وحد سميسان إيسان وأبوران إيسان إفكم بين أبور أيات سميسان إيسان الله مركا وعي تبارك وتعالى سوى نبي الله نوح مركا نبي الله إبراهيم أيات المام قوم كيسيه وعيري وحن عابد إيسان وبين أبور ويان الله وعي إن الذين أصنام تدعون أدبر إيسان من دون الله ألسوا كذي لا يملكون إذين تري مايان أو إذين ملكي ما إذين هنان مايان لكم إذينك رزقا رساقات ينول فابتغوا وحاد كرات ستان عند الله ألا أكتيس كدونا الرزق رساقات إلهي حقي سكرات سدا واعبدوه ألنا عابدا واشكروا أمهد نغى له لله إلهي أمهد عليا إليه حقي كلي إليه ألا حقي سنبا ترجعون ليذين لابيا ليذين عليا فإن كذبوا نبي مركا وحويا محمد وهديك بينيان فقد حقي كذب وي بينيين أمضوا أو من قبلهم كوان قريش كهريي وما على الرسول رسولك كركي سماها إلا البلاغ قارسين موياني قارسين تاسو المبين واسكعد قارسين عد إنو ددك قارسيود كركيسا رسالة أمبادوشيس الرسولك وحكالو كركيسا مجرتو أنبيادو ساسي وضاهايوي مركا هالكنا إلهي تبارك وتعالى ونوغو تلماميا نبي الله نبي إبراهيم إن الله صدر إسناق قوم كيسي ويقولوا مركا وحويان يعني ددك مركا وحويان يعني مشركين تا كم من نقضي وحلقيسي حتى أبيه وقال وينها ومشرقة سورة مريم أي آدو قد حدودين يا أبتي يا أبتي يا أبتي وآدو قصر نغنيسا أبينا آزر بالأورنجري نبي إبراهيم أبو التوحيد بوها خليل الرحمن بوها حنيفا بوها من آدو عجبا توحيدك إلهي تبارك وتعالى أوت المامئنوها هقاميه توحيدك أيها مركا نبي الله إبراهيم قوم كيسي مركا وحكي وإلهي كلي عابدا وإلهي كلي كعب صدا مركا عبادة إلهي بالا عبسنا إلهي بالا تبارك وتعالى كليس ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كي الناس وإن إلهي أنت عابدان لك عبستان بايدين خير بدن هدي قرن إنسان روح مركا عقلك يقرشد له عباده يا الله كعبسي واحتروا وحكوا وحكتر يا مجران لبدا الشيء إناد كن ولا تكون ما تلقى الربا مركز الله وحوت المامي نبي الله نوح قوم كيسير وكيري إنما تعبدون من دون الله أوثانا وعد إلهي السكدي سآد عابد إنسان أوثانا وأصنام ودقحان سنم يويان وتخلقون إفكا وحادنا السميسان إنسان وأبوران إنسان بين أبور وحاد سميسان إنسان وآل أبوران إنسان بين مركز وحيري إن الذين تعبدون من دون الله
waxaanaad caabudaysaan ee aad samaysateen alla ka sokeeya waxay doonaan ba ahaadaan mar haddii alla ka sokeeyaan laa yamlikuuna lakum rizqa qofka waxa ugu horeeya laga doonaa waa inuu wax ku siiyo quudato cunto oo ku noolaato oo nolol ku siiyo Soomaha nolol ba keelimaysan Allah marka wuxuu tilmaamay tabaaraka wa taala ogtayn qofka haddii adigu nolol siin hatta xaaska waa ka furmaysa oo shariicada de qofka waxyaabaha gabadha ay iska leedahay waxa kamid ah yani an nafaqa in la biilo haddii marka ninku xaaskiisa biilan waayo te sharcigu marka waa ka furaya gabadha oo ka sii deynaya yani waxa weeyaan qofka shaqaalahaaga waxa u baahan yahay ujuuradiisa يعني marka waxa way asnaamtan aqli ahaan baa loo tusay waxa la leeyahay war waxaanaad caabudaysaan la yamlikuuna lakum rizqa wax risaaqada iyo waxay nolol idin tari karaan ma jirto fabtaqu inda allahi rizqa ilaahi agtiisa risaaqada ka raadiyo xikmad weyn baa ku jirta risaaqada yaa bixiya allah tabaaraka wa taala cid aan ilaahi hayno bixisa ma jiro risaaqadu waxay la mid tahay cimriga عمرك يا بحيا إلهي كلي تبارك وتعالى يعني قف ما ديه كرتا ما أنت ولا لو حان كارب طلبه إنه نهاية إن هذا هل صار عمرك يقول درته ما ديه كرتين هذا إسلام ما أوله أدنى ما بدها يسد تاوح الله مذا مركا رساقة ده قف وحي أوله وكسين كرا لكن أسألك يا بحيا الله هذا قال لك أقرأ قفا حبك يلمس haddii alle uu kaaga qoranaysa kula soo dooranay albaabku kugu soo garaacaya 8 saac beenimo wuxuu leeyahay sheekh bal yartoos xoogagana ka qabo wax ilaahay ku qoray tabaaraka wa taala meel kugu seegmayaan saadaraadad baa nabi wuxuu jiray in ruuha alqudusi nafakha fi raw'i anna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizqaha nabi allah jibril alayhi malku jibril baan leeyahay wuxuu dareenkayga iyo qalbigayga ku afuufay oo ii sheegay yani in aan nafna adduunkan ka dhaqaaqayn oo ka dhimanayn ilaa wixii ilaahay u qoro risaaqada ay dhameystiranto maalinta buugaaga laga waayo $1 laga waayo kun shilin laga waayo ayaa la oranayaa khalaas kan meesha ka kaxay laakiin inta kun shilin uu ku nool yahay koob shaah ku cabto wali waad si noolaanaysaa لكن ما أنت اللي جاوا يبوق قال رصيد كاي خسرت هذه ومرنتهاي خلاص كشقافي ما أنت بسوي الله مركه وحده تبارك وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له علماء مركه وحده حكمه وين باكو جرت قف هذا رساقه دونيسو لبا شيء لا يمو العباده والشكر إلهنا عابد ما هاد علنا لغا هلو وعباده لفتركده waa mahad celinta kamid tahay arabka inaad ka shukrido maalka sadaqadii aad ka bixiso masaakiinta aad ka xiriso khayrka aad ku bixiso shukriga kamid tahay waa dhowrto waxay ku dhowraysaa wixii ilaahay tabaaraka wa taala uu ku siiyay ku dhowraysaa marka waa ajaa'ib weeyaan oo waxa la yiraahdaa nimcadu dabar bay leedahay xoolaha soo laba dabro awrka la soo dabro dabarka nimcada ilaahay markuu ku siiyay in aad dabarto waa shukriga ilaahay la in shakartum la azidannakum waka الله مركه وحي وإبراهيم أي وأرسلناه وأنذرنا إبراهيم النبي إبراهيم إذ وقت قال أويل لقومي قومك اعبدوا عابدوا قومك الله إلهي واتقوه كان عبصدا ذلكم أرنكي ناسا خير بدل لكم منك إن كنتم هداتين تعلمون كوا وحقرانيا إنما تعبدون واحد عابد إنسان من دون الله لسوا كذي واحد عابد إنسان أوثان أصنام بد عابد إنسان إنما تعبدون وحويان إنما مركا وحرف الحفر حسب من حروف الحصر بالإرادة ومركا وحوي وحبا لغو كوبا لغو حرا إنما تعبدون واحد عابد إنسان من دون الله لسوا كذي أوثانا أصنام بد عابد إنسان وتخلقون واحد أبوران إنسان إفكا بين بد أبوران إنسان إن الذين أصنام تعبدون عابد إنسان من دون الله لسوا كذي لا يملكون تري مايان وملكي مايان وحنان مايان لكم إذنك رزقا رساقا إذن حنان مايان وإذن سين مايان فابتغوا وحاد كرد ضلبتان وكجريسان عند الله أكتي كجري وكردونا الرزق الرساقا إلهي حقي سكر هذه
واعبدوه ألا كلي عابدا واشكروا أمهد نقل له لله إلهي أمهد عليا إليه إلى الله ألا حقي سترجعون ليدين لابيا ليدين عليا وإن تكذبوا هداد بينسان وقليها مركا لبا آيادا لبا تفسير بعلماء أم ويعليين وإن تكذبوا إن لو عليو نبي نوح إنه لا اللي يقوم كيس أوليه هدي وركي قاعد بينسان فقد كذب من قبلكم علماء قالوا عليه ما فإن تكذبوا قريش بالو علينا وليه هداد نبي محمد بينسان فقد كذب من قبلكم ومدين كوريه أي مركا بدن بار نبي مركا وحوي أنبياء ذي بيني الله مركا وحي وإن تكذبوا هداد بينسان فقد وحدبا كذب إني بيشين أمضوا أو من قبلكم إذن كهريي إلهنا وبابيي وما على الرسول رسولك كركي سماها وحكله إلا البلاغ جارسين موياني المبين وعد جارسين عد هل كان مركب محل قاضنيه باب الدعوه مركب لا جوجو قف كان اد خيرك او شيغيسو دعوده وان نقطه بلاغ مبينه اد هل فهم قفكي هدي ان حجدي لو عدين او وخي ان لو كلا سارين او وخي لو بيانين قفكي maxaa qofkaasi marka uu ku cabsanaya ama maxaa la gaarsiin waxa la rabaa qofka hal xaraf baa loo sheego in waxa loo cadeeyo khudbad jimcad akhriyaysa tusaalahan waxa dadka u sheegayso waa inay cad yihiin ilaahuma hal aayada u sheegtid hal xadiid hadaad u sheegayso halka xadiid dadkaasi waa inay siday tahay ay ugu cadaataa laakiin aad tiraahdo 10 warqadood baan akhriyaya hal jawan iyo hal jiis aan ka dhigaya waxa weeyaan dadka waxba fahmin baan ka dhaqaaqaya ama markaan minbarka fuulo يعني waxaan noqonayaa sidii wax dadku ay wada aan loolanayo dadka aan ka loolaysiinayo yani arrimo badan baa runtii jira oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka uu khudbada akhriyayo yani laba tilmaamood baa la sheegaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yani waxa weeyaan codkiisa aad iyo aad buu kor ugu qeyli jiray a'la sawtuhu wa ahmarra aynaahu labadiisa indhoodna waa bardhigay noqon jireen kaanahu munziru jaysh عدو يعول صوصه انه كدغي او كان وركا كعاي ووري او كله لكن هذا علوشه كاخريسو لا 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 waxaad arkaysaa hadda masaajidadeena qaaliban ama markaad aragto hurdadu waxay u macaanaataa marka khudbada la fuulo dadku markaas aad moodaa inay silent wada galaano dad boo hurdaaba qaar ba khurriya habeen dhaweed waxaan sujuud dhaweed ilaahay wuxuu og yahay khudbada intii la akhriyo dhagayga wax ku hay ku khurufta ku hay khurriya subhanallah wa ajaib way arinta waa min ash-shaytaan asalku waa arintaas waa shaytaan hadii goobaha khayrka aad ku lulooto ogow oo baalkii ku saaran ninkii odayga hadaad ku lulooto goobaas bal waxa sunnah inaad meesha ka kacdo hadaad lulo ku dareento intaad ka kacdo meel kale fadhiisato khudbada marka lagu jiro inaad istaagto meel kale goobta uu ku galay inaad goob kale istaagto fadhiisato laakiin aad baroosi ka siyaasadda tiraadoo bahal baan baraya oo si wadato waa shay khatar awi ninkan imaamka ah ee ummadda hor taagan waxa laga rabaa inuu ummadda si xay ula hadlo ummadii oo dhan baa waxa la yiri kaay ninka kaliya dhageysta شركة يربى لجوسه قلي دقه دي واحد ليري حتى قرآن الكريم كما آخر كتمالي حتى قفك هديها كتر إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت هداد قفك صاحبك هترى يرى أمس إمامك بحض لي يخطب خطبتي أديك يا خطبت هذه أي برتي يعني ازددك أردن بعد دقه دي لجو كاني فرصة كقالسا أدونك الدعوة للجيدية مجرته فرصة مالنتا جمعها dadku haday khudbada jimcaha umada uga faa'iideen waayana waa khasaaro dacwadood arinta hal ogaado sababta ummadii oo dhan baa lagu aamusi oo lagu keenay oo lagu soo xiray oo waxa way lagu bal khayrka u sheeg markaas aadan hal kelmada ka gudin karayn soo inkar maaha ya ha marka waxa way aad iyo aad arintaas
dadkuna shacabkuna waa in ay la ku tala galaan يعني waxa weeyaan khudbada inay dhaga u yeeshaan dhug u yeeshaan u soo jeedaan oo qalbiga soo jeediyaan oo hurdadan iyo riwaayadahan iyo waxa qaar baad arkaysaa mobilada la wata qaar baad arkaysaa waxa weey waa la sheekaysanaya qaar baad runtii aad yaabaysa khudbada jimcaha ahkaanteeda waxaad moodaa in la isuba dhigin inta waxay geliyeen wama ala ar-rasuul illa al-balagh lama oran illa al-balagh al-mubin ma ma'a al-mubin al-bayn addaan laga rabaa warku waa inuu cad yahay siin iyo saad waa la kala saaraa Soomaa waa in umada loo cadeeyaa oo qofku waxa uu sheegay waa inuu umada u cadeeyaa saas laga rabaa inta aynu caaw ku joojino wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad rabbana atina fid dunya hasana